xildhibaan Cabdikariin Cumar Cambe oo kamid ah guddiga kheyraadka tamarta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xiisada ka taagan deegaanka Saameel ee ka tirsan gobolka Awdal wuxuuna yiri marka hore waxaan doonayaa inaan u duceeyo taliye ku-xigeenkii ku dhaawacmay oo aan leeyahay Ilaahay ha u boogadhayo waana arrin garaadara oo qoolxuma in maalin walba waxaan macna lahayn oo si fudud oo iisi loo dhamayn karo oo maamulka gobolku ka abuuro xamaasad iyo waxaan macquul ahayn waxa weeyaan Saameel waxa la helay ama dahabkeeda wuxuu soo baxay oo la ogaaday bishii 11aad ee sanadkii hore taliyaha qaybtu wuxuu geeyay 12 askari markii ay isu buuqeen dadkii dahablaha ahaa ee dahab ka shaqaysanay oo isaga yimid gobolada Soomaaliland oo dhan iyo dadkii deegaanku 12 askari uu geeyay 12 askari baa dadkii meesha ka saaray oo ka dareeriyay 4 bilood ayay banaanka ka joogeen wax problema iyo wax rabshado ka jireen ma jiro taliya in gudoomiyaha gobolka wiigaan soo dhaafnay ayuu halkan ka raray ciidanka la yiraahdo ciidanka birmadka dabadeedna wuxuu ka soo saaray meeshii 12 askari oo booliskii wuxuu bilaabay inuu dadkii deegaanka hanjabaad iyo cagajugleyn oo ku bilaabo isla markaana uu toos ugu tago dadkii meesha laga saaray boorka joogay oo halka iska deganaa sugayna waxa ka soo baxay deegaanka iyo waxa la yiraahdo dadka meesha maamulka ka ahaa dabadeedna wuxuu ku bilaabay inuu dadkii soo xiro waxa weeyaan taasina waxa keentay inay soo dhacaan deegaanka dadkii deegaanka iyo ciidankii nabadgelyadu waana mid subxaanallah ama waa garasho fool xumaan leh in maalin walba waxaan macna lahayn la isaga hor keeno dadka deegaanka iyo magaranaysaay iyo ciidanka nabadgelyada oo ah halbowlaha qarankani ku dhisan yahay maalin walba waxaan macna lahayn inay naga baxaan rag ma haatan tii horeysay waxaan ognahay tii bariga magaalada Boorama ama meesha la yiraahdo Shayla oo intuu ciidanka xeeyay rag halka joogay oo iska si fudud arrinkooda lagu dhameyn kariyo lagu xalin lahayo odayaashii iyo salaadiintu ay ku jireen ciidankii ka dul furay dabadeedna hal askari naga maqan yahay lamana ilaa maanta la liitaan dhaawacoodi waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka waxa weeyaan wax aad si fudud ku dhameyn karto ama afar oday oo aad dirtaa ay dhameyn karaan ma aha inaad rabshad ka abuurto waxa imika halkan ku xidhan oo maanta la keenay dad ka badan 40 qof dadkaas waxa loo galabsadeen ma jirto dawladda kuma duulayno mucaarid kuma ahayn mushkilad kale wadeen ma jirin waxa kaliya waxay doonayeen inay dahabkaade qotaan oo hunguri bahay xildhibaanku hadalkiisa sii watay waxa uu markale ka warbixiyay shaqooyin soo laabtay oo sidan oo kale oo ka dhacay deegaanada Soomaaliland iyo sidii lagu xaliyay ayaa wuxuu tilmaamay anu waxaan tagay oo aan ka qayb galay arrin sidan oo kale exactly noocan oo kale aha oo ka dhacay meesha la yiraahdo Cirshiida waxaan soo marnay Cirshiida dhagaxa madow ilaa iyo Bowbowle iyo Xarsho oo badda waxaan raacay oo arrinkan nala galay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta barasaabka gobolka Sanaag duqa magaalada Ceerigaabo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Sanaag intaas nala galay si fudud baan ku soo dhameynay wax dhib oo ka dhicina ma jirin tanina taasun bay la mid ahayd ma hadambidey dadku inay dahabka ka shaqaystaan ama ay dahabka qotaan meel walba waa laga qodaa waxaan leeyahay arrinkayaan la siyaasadayn dadkan ayaan la jahawareerinin haddii aanay wax kale ugu jirin barasaabku gobolku dadkan ha sii daayo wixii khilaaf yaalana wax khilaaf oo yaalo annagu aan arkayno meesha ka muuqaama jireen nidaam ay hawshan ku galaan ku qotaan ha u sameeyo waa shaqadiisii ugu dambeyntii xildhibaanku oo si guud mar ugu jawaabayay xildhibaan kamid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland oo shalay warfidiyeenada la hadlay isla markaana deegaanka Saameel ku tilmaamay inay ka tirsan tahay degmada Gabiley ayaa waxa uu yiri xildhibaanku niyo waxaan filayaa in badan buu qurbaha ku siraago deegaanka iyo wacyiga dhulka ka jiraan garanayn laba qodob baa iga muuqday waxa uu ka hadlay mid wuxuu ahaa horta miduu sheegay in deegaanku ay meesha isu laayeen dadka deegaanku oo ka soo kala jeeda labada gobol ee Gabiley iyo Awdal taasina haba yaraatee wax jira maaha sida wax u dhaceena sida aad iduguna ka warhaysan baahad
horena aanu soo sheegayoo dad dahab qodanayay iyo dadkii deegaanka ayuunbaa isku dhacay markaa taasi xildhibaanku waxaan u malaynayaa dee wuu iska xog badan baanu haynin talabaad oo uu ka hadlay baa iyaduna jirtay oo ahayd inay Soomaali iyo boorku ay ka tirsan yihiin gobolka Gabiley taasina dee waxaaba cadaynaya anigu halkaas ka tirsanay halkaas ka tirsanay raadaba ma ahine cidda maamulaysa hawshan gacanta ku haysay waxa weeyaan labada gobol waxay leeyihiin laba barsaab bay leeyihiin laba taliye qaybeed bay leeyihiin xuduuday leeyihiin oo kama dhaxayaan isku jiraan labada gobol marka meel walba gobol walba mas'uulkii qaranka u xil saarnaaba maamulaya oo ka shaqeynaya cidda hawshan wadayna waad ogtiin taliye ku-xigeenkii qaybta booliska ee gobolka wadal baa ku dhaawacmay marka xildhibaanka hadalkiisu hadal lagu sii rafto uma aha waa Shucayb Maxamed kan Shucaybiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama.